بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وعشر كسدحات وحنكو قادنينا how to set up product attributes سيدي لو set up كريا أما لو فريسيا product attributes وحال لها products أما ألا كلا دوان قصائص تسالحان وحو كلا دوانان كرتا سايسكا وحو كلا دوانان كرتا كالركا وحو كلا دوانان كرتا برانديغا أما دادك سو ساري si aa product attribute u set up garaysid waxaa imaanaysaa meesha ku qoran tahay product kadibna waxaad dooranaysaa attributes marka attributes dooratid halkan ayaa waxaa ka set up garaynaysaa attributes already website-keena waxaa noogu daawacan oo noo samaysan attribute la dhaho color waxaa sameynaynaa attribute la dhaho size aa sameynaynaa cabir size markaa dhahno halkan waxaan ka dooranaynaa attribute kan qaabka uu soo bixi lahay ma sabira ma colora mise pattern mise radio waxa dooraynaa pattern kadibna waxa leenahay add attributes marka halkan add attribute aan ka doorano waxaan dooranaynaa waa automatically waxa la soo daawacay size kadib waxa dooranaynaa halkan oo ku qoran tahay configure terms marka aan doorano waxa qoraynaa alaabta aan hayno cabir ahaan waxaa gashan karo small persons oo s laga soo gaabiyey sidoo kale l aan lehnaa for large sidoo kale dadka waaweyn daarabno inaan u sameyno ayadana waxaan leenahay xl intaasaan sameynaynaa dhexdhexaad dadka hadaa rabtid inaa u samaysto waxaan dooranaynaa m for medium kadibna waxaan leenahay add new size sidaasaa waxaa loo set up gareeyaa product attributes insha allah qaybta afaraad waxaan ku qaadanaynaa sidee loo soo geliyaa variable product oo ah product cabir kala duwan iyo kalara kala duwan leh